warwaayid salaam saaxiibayaal meel walba joogtaan waayid salaame DJ Zubero raggi warbaa haysta Zubero sheena wixii helay iyo wuxuu sameeyay iyo wixii laga sameeyay baana diyaar lehe de maxaa buu soo galo hurdo uga soo kaxad right now waxaan rabaa warbaa jira wiishka leeyahay maqal jirta warbaa jire wiishka leeyahay maqal jirta waxaad aragteen ninkii looga Yuusuf ahaa oo codad maaragtay intuu soo qaaday Cabdinaasir Soole codkiisi iyo Shiina codkiisi wax isu geeyo wax isku habeeyo oo wax farsamaystay horta waxaan rabaa looga intaan la gaarin arrintiisa la gaarina waxaan rabaa inaan laba era iraahdo walaalkay horto waa dadaaliyey laakiin wuxuu lawsan yahay lacagta horta uu soo qaatay ayaa rabaa inaan laba era kida arrinta Shiinana waxbaan ka iraan doonaa laba eraan ka dhihi doonaa laakiin waxaan rabaa inaan eray ka iraahdo horta marka hore lacagtii Muqdisho intay la eg tahay de Shiine iyo isagana waa laba rag oo horta isu hayb ah oo ilmo adeer ah haddaad ogtihiin waa laba rag oo isku hayb ah ilmo adeer ah walaalo ah codadkooda iyo waxay is iraadeen iyo hadda kulley dib aan u dhigan doonaahe waxaan rabaa inaan laba era ka iraahdo oon ku nuxnuxsado shacabkana u sheego dad baa maanta isla wacay warbooso oo miyaa saas ahayd oo miyaa saan ahayd oo miya waa idinka jaahil bixinayaa wax badan inaan idinka jaahil bixiya rabaa aniga waxaan rabo inaan wax idinka jaahil bixiyaba sideedaba war ninkan warsangeli daarood maaragtay lacagta soo dhacay Muqdisho ka soo dhacay lacagta horta xoolaha uu soo dhacay xoolaha wii waaye lacagta cadadkeeda 20 milyan maahana waa 4 milyan waaye shirkadda Future Trade wax la yiraahdo baxsaday gabadh Isaaqa waxay u tiri ayadoo kaftamaysa hawiyuhu inankii computer wato maxay la aaminaan intii mugta hawiyuhu inankii computer wato maxay la aaminaan waxaan rabaa marka ninkan horta xoolaha hawiyo soo dhacay hanti hawiyo soo dhacay ha soo dhacay Shiinu soo wacay Shiina culaynin la yiraahdo oo ilma adeer ay yihiin soo wacay wuxuu ku yiri Shiine dadse qisada u dhacda rabaa inaan ka sheekeeyo mugta Shiine derin afdheer baa tahay la dhageysto ehel baan nahay qaraabaan nahay walaalaan nahay waxaan rabaa inaad baxar fakiso Shiine wuxuu yiri sootay nimankii aad ku jirtay nimankii ummadda dhacday oo maatidii Muqdisho dhacday soota ku jirto warniyo way dhageyso afkaada qabso garab isii walaalbaynu nahay lacag waa sitaa nin noocaas u hadlaayo aha intaas markay marayso marka dadka la dhacay ninkan markii horta intuusan waxaa Shiina soo wicin ninkan xabsi buu galay waxaa soo damiintay Facebook profile-kiga ka arki kartaan laba xildhibaan ayaa soo damiinatay oo warsangeliya iyo caaqilkii warsangeliya soo damiintay labadii xildhibaan ee warsangeliya Facebook profile-kiga ka arki kartaan waxay qaateen lacag boqol kun ah ayuu siiyay looga Yuusuf aniga yaasi misnaqana miyaan weligii la hadlin waa idin dambaysaa warkaas oo dhan looga marka waxaan rabaa shaqada inaad fahantaan looga laba xildhibaan oo ku hayb ah ayuu wuxuu siiyay boqol kun oo dollar iyo caaqilka beesha warsangeli oo 100 kun uu siiyay labadaas xildhibaan oo ku haybta ah soo daayay dad baa raba hadda dagaalkii Shiina iyo looga iyo Cabdiqaadir Boosi daayir cali waxaas wax ka weyn baa horta u socdaaba nin qoyana biyas kama meera ninka meel buu u socdaa uu in mar habaabin rabaa laakiin mar habaabiskaasaan ogolayn aniga maran habaabiskaasaan ogolayn warka wuxuu leeyahay ninkii looga wuxuu leeyahay lacagtan waa inaad qaadataan oo nimankan hawiye aad iga daysaan
xarigooda dhibkooda waxooda iga daysaan. lacagta waa ku guuleystay inuu siiyo, xabsiga in laga soo daayana waa ku guuleystay. iyagaana maalkooda huray oo damiinka ah oo naftooda damiin waa maanta hadduu hawiye waayo lacagtiisa labadaas xildhibaan ee warsageliyay caaqilka wuu baxsaday, labada xildhibaan ee warsageliyay xasaanad ay leeyahay hebel xasaanad ma lahana ma jirto wax xasaanad la yiraahdo oo ay ku faki karaanna ma jirto. horta ninka looga yiraahdo 4 milyan oo dollar oo hawiye ka dhacay, aniga wuxuu meesha igu codkayga miyaad maqasheen? Maya. miyaad deeyo codkiisa maqasheen? Maya. ninkaa wuxuu u socdo oo cod sawiradeeda uu isticmaalayo aniga nin ganacsado ah oo aan laba ilmo adeerana kala dhashay aniga de qaraabo dhow soo mani laba ilmo adeerana kala dhashay ayuu wuxuu ka dhacay lacag 150,000 oo dollar. waan wacay looga Yuusuf waa karaa waa uu idaaban doonaa. waan wacay waxaan ku yiri looge maalintan ka quusta ninkaas eeg nin dadkii aan dhacday hawiye abgaal iyo habar gidir ugu badnaa hawiye oo dhan u dhacay. looga Yuusuf hawiye oo dhan u dhacay dase maantase waxaan wadaa fariin hawiye oo fariin daarood oo warsangeli ku socotaan wadaa. looga waxaan ku yiri war looge ninka hebel miyaad garanaysaa? wuxuu yidhi haa waa garanayaa. mala socotaa ninka lacagta ka dhacda waa nin abgaala oo wacaysla oo macalin iblaawo oo bakargaab oo noocaas hebel ilma adeer baynu nahay. wuxuu yidhi waan garanayaa walaalow salaamo bangi baa lacag iga xayranta daabshiil bay lacag waa assalaamu calaykum. aniga waxaan ku yidhi cid dacwo ah oo adigu kaa socota oo kule looga Yuusuf baa oo mar dambe la baxay maxamed cawaalade meelahan kala baxay ayaa lacag iga dhacdo oo saan dhibaatadana qaba qof idhaahdo horta ma jirto. laakiin qof gooni isoo wacdo yiri in adeer adaa Facebook baraha bulshada idinoo jooga oo wixii isoo dhicin kara adigu miyaad ii keeni kartaa? ninkaas ka jira ilma adeeraan nahay laba isla dhalatay oo ilma adeer ah ayaa ana asigana kala dhashay ninkaas ka dhacay lacagtaas 100,000. wuxuu yiri assalaamu calaykum waxa lagu daraa waa looga Yuusuf dhageyso codkaas uu duubtay muu soo daayay. aniga codkan kula hadlo waa duubaye aniga kuma warliye bulshada ha u soo bandhigo. looge aniga horto unfortunately nasiib darro looga codkiisa ma duubin. weligeena qof cod kama duubin wallaahi billaahi tallaahi weligee cod qof kama duubin. nasiib buu leeyahay laakiin nin sidaas u shar badan hadduu yahay waa ka duubi lahaaba haddaan kuu sheegaa qaa'il feeri qofka aad codka ka duubaysid waxaa la yidhi qofka muslinka ah hantidiisa ha kaa nabad gasho, sharafkiisa ha kaa nabad galo, cizigiisa karaamadiisa ha kaa nabad galaan, maalkiisa iyo dhiiggiisa ha kaa nabad galaan. soo lama dhihin nabiga calayhi salaatu wasalaam? intaasaan raacaa aniga ciidan ka baqamale fiilana degana. markaad dhimatid maxaa xiga? wuxuu nabiga kaaga digaya calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ilaahay kaaga digay haddaad samayso maxaa xiga la iga celisay inaan ninkii la yidhaha looge cod ka duuba mooye ma looga ka baqayaane? ma kula tahay inaan looga ka baqaane? waa maya. looga dhiiggiisa iga nabadgalay, looga maalkiisa iga nabadgalay, looga sharafkiisa iga nabadgalay, looga afkayga addankayga waa ka nabadgelya looga. laakiin isaga maadaama codod duube u yahay cod waa duubtay codkayga muu kusoo daro markaan leeyahay lacagtii maxamed abshir lacagtiisa keen markaan leeyahay waa in adeerkii maxamed abshire lacagtiisa keen markaan dhahay looge muxuu duuba wuxuu igu yiri waxa weeye ummadda Soomaaliyeed u sheega rabo. wuxuu igu yiri lacagtaas haddaan kaa siiyo 100,000 haddaan 10,000 kaa siiyo ma aad musaysa waan quslay. looge waxaan ku yiri ma kaftamaysaa mise dhabbay kaa wuxuu igu yiri si jeesa ayuu igu leeyahay haddaan hadda maxaa abshir lacagtiisa u celiyo maxaa abshir de asiga looga abgaal iyo kala garan maayo mugti abgaal iyo hiraam iyo hawiina cawaan yihiin oo layska dhaca lacagtoodu aamisiya leemaane waa ceyslaha iyo waxa kale sida xeeray saruur toona garan maayo. wuxuu yiri ninkaada kaalis anigu ee bakargaab waxa ka sheekeynaysa ma qaanay hadduu abgaal ma dhaafsin karo waxe hadda 100,000 baa waa sax ka haysta ina adeero haddaad toosh igu ifin oo waxba igu sameynin haddaad 10,000 oo dollar ku siiyo cash ah ka waran wax kale ma dhihin. hadduu hinguri iyo waxaan ilaa 10 isii dadka qaar sida soo qorayaan haddayba jirto 10 isii oran la 10 isii. wuxuu yiri maxamed abshir haddaan lacagtiisa u celiyo 3,000 dollar ma ka helaysaa? waxaan ku yiri soo dhawow horta miyaad kaftamaysaa? aniga hadda kaftama u haysto warkaa miyaad kaftamaysaan ku yiri. wuxuu yiri maya ma kaftamaayo wallahi dhaba iga tag.
looga waxaa yidhi imise qofood ayaa lacagtooda diyaar kugula tahay inaad social media ku bixiso adigoo gaadaya ama dhacaya dadka lacagihii milineeradii lacagii iska lahaa wuxuu yidhi ani adiga weligay inta qof wacay ma dhihin lacagtan hoo qof weligay ma dhihine maxaa abshir lacagtiisa 10 kun makaa siiyaa ninkii isagoo dacwad noocaasa loo haysto oo aniga aan ka mid ah dadka lacagta u haysto oo ninka waxay qaraabo hoose yihiin isna dhinaca hooyada deyo maxamed deyo oo deyowna uu ku dhegan yahay uu leeyahay lacagti maxaa abshirkeen oo deyowna niman cabdiraxmaan sareemaana dabcan lacag kale uu ka dhacana uu ku haysto looga waa la xiray ilan deyow sawirkiisa wuxuu soo bandhigoyo lacag buu ku haystaa deyow wuxuu sawirka oo looga u wado deyow sawirkiisa waa afkaad ila soo gasha shalay waay anaan runta idiin sheegaya markay intaas marayso looga waa la xiray looga niman warsangeli daarooda soo daayay lacag boqol kun oo sii waa daminteen waa baxsay aroos iyo baashaal iyo tamashlayn iyo tumasho iyo hargeysa u tagay burco waxaan rabaa markay intaas markay marayso waa usoo laaban doonaa si shiine waxaan rabaa hal arrin nimanka uu martida u yahay waa isaaq waa samaroon waa warsangeli kale daarood waa dhulbahante anigu dee isaaq buu la joogaa dhihin maayo somaliland qabiilo fara badan baa dega aad baan u jeclahay somaliland hal qabiil ku koobi maayo 100 qabiil baa degta abgaalkan ka dhasho oo habaabsan xataa waa degaa hawiyahan ka dhalan oo dhumay baa dega raxaweyn baa degta waa dowlad somaliland waa dowlad qabiil walbaa dega finland soo hadda abgaal ma jooga idin kalama hadlayo leef gaaladii leheedna waa joogaan dowlad noocaasaa lagu yaqaana laakiin isaaqaa dega dadka dhaha horta waxaan leeyahay kelmadaas ka raali geliya qabiil dowlad maaha somaliland waa dowlad qabiil walbaa dega senegaala ka soo hadlaysa dukaan leh ku fogaan maayo hadda mashruucaas waxaan rabaa somaliland baa ku diro somaliland cabdiqaadir boos baa idil hadlaya ninkan looga yuusuf la leeyahay maxamed cawaala la baxay somaliland lacag maatada hawiyuu la soo baxsaday lacagtu ku aroosaya maata hawiyaa iska leh sababaha iyo dhibaatada iyo waxa uu ku kalifaya inuu shiine iyo raadiyey soole iyo gadaal cali sow iyo gadaal kaga sheegi doonaa laakiin hadda baaqiga wuxuu yahay war waxaan rabaa somaliland nin lacag hawiye ka soo dhacay ayaa jooga halkaas ma ii soo qaban kartaan oo ma noo soo qaban kartaan ninkii dhaqanka ugu weynaayay ee xaad afayeenkii hawiye oo gudoomiyihii hawiye beelaha hawiye ayaa soo socda beritoole hargeysa ku soo socda war miyaad noo keeni kartaan ninkaas noo soo qaban kartaan nin tuug ah oo hantideena soo dhacay madaxweyne muuse bixi waxaa la yidhaha muuse bixi la hadlayaa war ciraan la hadlayaa war waxaan la hadlayaa ninkale faysal cali waraabe waa taliyaasha ciidanka booliiska kuwa nabad sugidda meel walbuu joogo waa nin tuug ah oo lacag hawiye maata hawiye soo dhacay waxaanu nahay haddaan nahay hawiye iyo nimanka la yidhaha somaliland waxaan nahay dad cilaaqaad wanaagsan leh history wanaagsan ka tegay anigu nin samaroona wax soo xaday ama nin isaaqo wax soo xaday kuma dayn lahayn muqdisho inuu igu dhex wareego damiirkaas ma lahaan laheene iga damiir wacanid oo iga wanaagsanid oo iga kartibadnid somaliland ninkaas ha la iisoo qabto ninkaas ha noola soo celsho ha noola xiro maxkamad ha noola keeno anana waxaan idiin ballan qaadayaa aniga cabdiqaadir boos aan lacag igama dhicin oo shiino culay kama dhicin oo yacquub siyaad kama dhicin oo deyow kama dhicin oo daahir calisow kama dhicin oo kama dhicin soolo kama dhicin taariikhda baraha bulshada iyo waxa uu hadda uga dan leeyahay arrimahan fiidiyoyada codadka la jarjarayo gadaal baa idinkaga sheegi doonaa laakiin waxaan rabaa ninkaas lacagtay naga dhacay ee maata hawiye soo dhacay ee raba inuu hadda sumcaddii iyo karaamadii isku yeelo dib dambe u kasbado anaga horta hawiye dambe u dhici doona ma jirto hawiye dambe intuu laptop usoo qaata dhici doona ma jirto isaga kuwa la halmaala laakiin haddaa la rabaa si nin hawiye inta dhacay neefsaday oo qayilay oo marqaamay oo shiishadeeyey oo nastay oo sigaareeyey ma dhici doonta waxaan rabaa waa dhacday isaaqow gar bini aadan hadday jirto samaronow hadday gar jirto warsangeli daaroodow hadday gar jirto hanti warsangeli haddaan hoos u degane ninkan waa nin warsangeliya oo warsangeli daarood ah war hanti warsangeli daarood gawaari candhameedyaal ah daarood dhan ma aadayo warsangeli daarood hanti bay xamar ku leeyihiin ma rabo hadda mooryaanti hawiye inaan u farmuuqee warnimaya waxbaa isu keen darsan haddaan soomaalinahay waxbaa isu keen darsane aan kala xishoogana looge xoolaha uu awiye ka dhacay hala soo celiyo waxbaa isu keen darsan hadday dhici weyso in looga la soo celiyo hantidii uu hawiye ka dhacay maatida hawiye
anna waxaad arki doontaan maanta hadalkayga waa dhayalsan doontaan warsangeli hawiyaa la hadlaya somaliland waa la soo hadlay beesha uu ka dhashay warsangeli daarood ahaan la hadlay haddaad soo celi weysaan hanti baad xamar ku leedihiine taas xisaabta ku darsada xildhibaano xasaanad baad leedihiine oo damintay xisaabta ku darsada hawiye geeri waa yaqaan hawiye wax dhacsi waa yaqaan geeri waa yaqaan nuuc walbuu yaqaanaa marka anaga hadda hawiye haddaana waxaan leenahay looga yuusuf waa burca tuuga oo 4 milyan hawiye kala soo baxsaday somaliland buu joogaa baaq baan u dira somaliland inay ay soo qabtaan war dowladnimo ula hadla somaliland iyo xataa ninka hadduu ama 4 milyan dhacay ama 10 milyan dhacay ama 20 milyan dhacay ama 3 milyan ama half milyan dhacay ninka hadduu hadal soo galay horta bal xabsi geeya maxkamad ama ha soo cafiso ama ha soo xukunto nimanka warsangeli daaroodna waa la hadlay waxaa soo haray shiine culey shiine waxaan la socday wada hadalkoodii anigii shiine wada hadalkeennii muddo soo socday shiine wuxuu igu lahaa cabdiqaadirow ha hadlin cabdiqaadirow ha ka hadlin ninkan anuu igu tol yahay anagaa ehel ah anagaa qaraabo ah anagaa walaal ah inuu lacagta celiyo oon la hadlo oon basareeyo oo si unu celisho ganacsigiisa u dhumin aaminaadii looga dhuminin kalsooni leh sharaf leh aan ku celin xamar ayaan ka shaqaynaynaaye bal adiga iyo deeyow iyo daahir iyo ha ka hadlinaayo zoole iyo arrintan ha ka hadlinaho bal u kaadiya ninkii waa garan waaye ninkii marka wada hadalkii dee shiina nin odaya oon jeclaha waaye si saxana war idinkuguma sheegaya mugto shiina waxbuu xiirinayaa shiina waxaa isagaa wuxuu ku baryayaabo war fiiri dadku meel dambe isla gaari karaan codod waa duubi karaan laakiin shiina anaa kuu hadlayo waxaan leeyahay war ninkan haddii xataa shiinow nin aan adeerkaa waaye tuug ah oo burcad ah xataa haddaad adiga burcadnimo usii dhacdid waaba xalaal shiino shiine burcadnimada lacagta aad hadda hadduu ku dhaho way dhici shiina ay dhacay hadduu ku dhaho soo tuug meynin adeerkaa haddaad sii dhacday aniga shiina lacagta cunaaba lii qaatee burcad waaye shiina haddaad dhacday xalaal bay ku noqon lahayd waa burcad waa inaan dhaca waa burcad tuug waaye tuug haddaad shiinow jidka lacagta ugu sii qaadata hawiye ka dhacane wallaahi hawiye gabar iyo wiil adeeg ku taageersiin lacagta noo qaad shiinow anaa kuugu soo celinayo asaga hadda muuqaalkaas shiina ay dhacayo shiina sumcadda kaga dilay kaga tahaye anaa hadda waxaan ku leeyahaaba anaa kaa dhacayaba 40 milyan ba cabdiqaadir boosa kaa dhacaya ilan tuug baa tahay miyuu shiina kaa dhacaya hadduu ku dhacayo shiina miyuu kaa dhacaya lacag walaashaa norway joogto $200 kusoo dirta muu shiina kaa dhacay waa su-aalaan ku weydiiye hadduu shiina ku dhacayo xataa kasoo qaba shiina waaba tuugba shiina hadduu ku dhacayo ma wuxuu kaa dhacayay lacag aad dukaan sigaar inta maaragtay ya kabar inta furato sigaar aad ku gadatay ood kusoo dhidid muu shiina kaa dhacay ma lacag aabbahaa ka dhintoo dhaxla muu shiina kaa dhacay hadduu ku dhacaa xataa tuug baa tahay tuug waaba la marsadaaye tuug baa tahay hadduu ku dhaco waaba keyrba haddaan bale haddii lacagtaas warsangeliya shiina ku wareejiyaan hawiye habi waaye shiina ay dhacay soola ay dhacay daahir cali sooba ay dhacay boos haddaan ku dhacaynaaba tuug baa tahay anaa kula soo taagay waa ku dhacayaa tuug baa tahay waryaa markaad leedahay maxamed abshir lacagtiisa 100,000 ka qaaday in adeerka maxaa ahayd adi ma nin wanaagsan baa tahay okay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inuu sheego marka ninka haddaa soo waco iraa xataa lacag isii lacagta laysku haysto ama shiinaha qaata ama cabdiqaadir boos ha qaatee ama daahir cali sooba qaatee lacagta laysku haysto horta maxay tahay ma lacag walaashiis denmark uga soo dirtaa ma lacag dhaxla abihiisa lacagta soo dhaca horta laysku maysto ha noo dambaysa tan shiine tan cabdiqaadir boos tan daahir cali soo tan zoola tan yacquub siyaad ha noo dambayse waxaan rabaa lacagti aad dhacday horta meel gey shiine kiiskiisa anaa meel kaa saaranayn daahir cali soo anagaa meel kaa saaranayn war soola anagaa kaa dhicinayn kiiskaas ha ku meereysane waxaan kaa rabnaa 40 milyan ee hawiye lahaa walaal loo meel ku sheeg waa lay dhici rabay social media lagu baadi rabay waxa laga dhici rabay soo lacagta soo dhacda ma haddii xataa warka xumeyno warka haddaa dhaba qaldan ku wadna xataa wixii laga dhici rabay ma lacag hooyada Kenya kaaga soo dirtaa ma lacag aabbaha Tanzania kaaga soo diraa maxaa looga Yuusuf soo laguma dhaadin haye abshir Yuusuf maxaa loo aadi waayay lacagteeda maxaa loo dhici waayay cabdiqaadir Yuusuf kullayso maxaa loo dhici waayay soo adigu tuug ma tiid tuugnimada marka step 1 iyo step 3 u kala baxdee
تا ادي هذا نلeda booskii shiinan dheerba waa step 2 step 1 ka xalli ma xalise lacag hawiye waaye hey hadda cod duubeysid hadda cod soo bandhigeysid codkii aniga aad iga duubta maxaa soo bandhigeysid ilaa cod xalaala oo raganimo leh oo geesinimo leh oo aad adigu leedahay lacagtay maxamed abshir lacagtiisa qaada eheed maxaa kaas soo bandhigeysid nasiibaad leedahay anaan cod duubin nasiibaad leedahay laakiin waxa fiican bulshada Soomaaliyeed horta Soomaanta adoo leh Maxamed Yuusuf soo in adeerka ma soo nin waa islaam aha 10 kun qaado 90 kun ha ka dhimato iga aamus afka iga xiro hawiye gabadha saaqa igu la kaftanto Mareykanka joogta iyo Ingiriiska midkeeda ma garanaaye hawiye dadka laptop wato ninka wiilkii laptop wato waa aaminaan indhaade hawiye hadda waxaan rabaa Yusuf Shiine idin kula meereysan iyo Soole iyo Daahir Cali Soowe hawiye oday dhaqameed baa leedahay tuug baa leedahay waxaad leedahay nooc walba ninka lacag buu dhacay Soomaaliland oo jooga Soomaaliland kuma war la oo baaq ma u dirna maanta iyo tolkiisa warsan galiye maxaa nala gudboon oo looga Yusuf ka sameyn karnaa bas anaga waas naqanaay dulmi Mareykan aan ugu joogo waa Ethiopia looga Yusuf anaga ugu joogo karo dulmi carab Soomaaliland leedahay war maxaa noo xal ah anaga maxaa noo xal ah isku laabta laakiin aqliga ifiri aqliga yuusan idinka marsan shiina san yeelay Soola san yeelay booskaas ma aha waa wax oo inuu ku gambada caara inuu ismariyo rab no irja ila asli horta asalka u laaban lacagtu waxa aawe kadib anaga hataa tuugana dhaha waxa rabtiina dhaha laakiin ana hadda kuugu soo indhacad tuug haddaan jidka ku arka isagoo 100 kun wato waa ka furana aniga tuug waay Abdulqaadir Boos mashiiq umul baa ka soo sheegtay mad dacambaro waa bari dukaanka gadataan dhacay ma gudoomiye degmaan dhacay qofka dhididkiisa ee xalaasha uu ku keensado ayaa tuugnimo la markaa qaadayso laakiin tuug hadii la sii dhaco waaba xalaal balacagtaas waaba ka furan lahaaba kan hadda dhacuuso kama lahay waaba ka xoogi lahaaba laakiin hadda lagu Yuusuf lacagtaada rab aniga maxamed abshir oo igu reeraa oo igu family oo igu jufa ah ayaa 10 kun ka qaadan lahaa ninkaas 10 kun ka qaadan lahaa ayaan ku oran lahaa 10 kun oo maxamed abshir aan qaadan lahay 90 ka qaado tuug baa tahay qaa'im baa tahay tuug baa tahay mar labaad ku sheegaya lacagtaas wallahi aakhiro kula gaari maysa aakhiro hawiye aakhiro xooliis kula sugi maayo ee adduun haddaad nolol ka rabto oo raaxo ka rabto oo baashaal ka rabto Somaliland cid wax iga qaaday kaftankiisa ku jirto booska ma ilaado yiri aniga isaaq baa marti u ahay si soo ku dhigo waa laakiin Somaliland isaaq uma aqaan Somaliland dawlad baa waqana isaaq baan marti u ahay cid wax iga qaadi karta male war hadaan ku raaco warkaaga Somaliland waxay leedahay hay'ad amni kuwa cadaalad kuwa dastuuri ah kala dambeyn xasilooni amaan haday Somaliland gambasho laga helo tuugnimo lagu dhaxnaado laga helo computerka laptopka aad ku dhacday hawiye ayaad burcay boorame iyo hargeysa ku dhici lahayd dawladda ku soo qabaysa shacab wax ma dhaamay haddaan wax u soo laabtaba marka haddaan u soo laabtaba hawiye waan ku dhaliilayaa doqon ayaan nahay haddii wiil laptop wato wax naga dhacayo doqomaan nahay wiil laptop wato hadduu wax kaa dhacay waxaan kugu dooda ma garanayo laakiin waxaan maqli jiray mar dagaal la dago mar labaad isdagana ana isdagay ku fogaan maayo looga Yuusufow codkii Abdulqaadir Booskeen bal hadda nin geesiyo taa waad ku dheeysay aniga hataa fiir hadal iga ma hayo on le waan qoslo dhaq 10 kun marabta war miyaad kaftamaysan ku yiri 10 kun marabta waan awooday inaan looga Yuusuf dhaw 10 kun maxaa abshan qaad 90 ka yaa laakiin 10 aan walaalkii ka qaato maxaa qadiid mudulood iyo mid hiraab iyo mid habeen kasta ugu soo taagana dad 10 kun ku faca damiirkayga haduu iib yahay 10 kun soo ma qaadan lahayn 10 ka soo ma qaadan lahayn damiirkaygan iib yahayn dadnimadeedan baax yahayn qofnimadeedan la iibsan karin looga Yuusuf way ugu sirayeen looga haduu dhaho hatta ana xamar joogi dhaho 10 kun hadaa keent 5 kun bay ku dhalee $1 ayaan looga sii lahaa sintiyaal hay dhashay waa mashquulin lahaa laakiin awiya ka dhashay lacagtu waxay ku soo gashay easy هو بقول كم كن كنت كن هيدا شبش هيا كودش لقي يسمع إنه لقول دلوا يا ما سنتين